بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي هلكن waa barta YouTube ee galka wararka. qodobada aad ku maqli doontaan warkayaga hadduu Rabbi karaali noqdana waxa qaybka ah waxayna dheeraada oo ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay duleedka Matabaan. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo kulan la qaatay siyaasiyiinta isku khilaafsan kuraasta gobolada waqooyi xilli uu khilaafka markaasi ku dhow yahay inuu hakad galiyo arrimaha dardargelinta doorashooyinka. guddiga dib u heshiisiinta oo ay ka maqan yihiin xubnaha maamulka Jubbaland oo gaaray Garbahari. wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye waxa ay jawaab kulul ka bixisay hadalka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya dalka Koonfur Afrika qasaare kala duwan ayaa soo gaaray Soomaalida halkaasi ku ganacsato. daawadayaal intaasi waxay noqonayaan qaar ka mid ah qodobadii ugu doorkanaa warkayaga. halkan waa barta YouTube ee galka wararka. haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furto. daawada si mar waliba aad u hesho wararka, warbixinada iyo barnaamijyaadka gaarka ah oo markan halkan aan kugu soo gudbino. asxaabtaada waad u sii share gareyn kartaa si sidaada oo kale ay kaga bogtaan isla markaana ay ugu xirnaadaan barta YouTube ee galka wararka. ugu horeyn aynu ku bilownay faahfaahin dheeraad waxay ka soo baxayaan qasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay duleedka Matabaan. qasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay dagaal deegaan ku yaala duleedka Matabaan ee gobolka Hiiraan ku dhaxmaray laba maleeshiya beeleed. dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maleeshiyaad hubeysan ay weerar ku soo qaadeen maleeshiyaad kale oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo Dhisaqe ee dhaca duleedka Matabaan. waxaana halkaasi ka dhacay dagaal geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. sidaas oo kale dadka deegaanka waxay noo xaqiijiyeen inay maqlayeen dhawaqa rasaas aad u culus isla markaana isku adeegsanayeen labada dhinac. sidaas oo kale dadka deegaanka waxa ay tibaaxeen in dagaalku uu ahaa mid saacado kooban qaatay isla markaana qasaaro uu jiro labada dhinac aysan soo kala gaaray. sidaas oo kale waxa ay tilmaameen in si rasmi ah aysan faahfaahin kaga bixin karin qasaaraha dagaalkaasi ka dhashay. wararka la helaya ayaa sheegaya in dagaalka uu ku geeriyooday hal ruux halka laba kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo isugu jira labada dhinac ee halkaasi dirirtu ay ku dhaxmartay. dad ku sugan deegaanka markaasi lagu dagaalamay ee lagu magacaabo Dhisaqa isla markaana dhaca duleedka Matabaan waxay sheegayaan in maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ay dib u laabteen isla markaana haatan xaaladda ay sidii caadiga ahayd ee hore ku soo noqotay. balse markasta waxay sheegeen in ay qabaan cabsi isla markaana ku aadan in kooxihii markii hore weerarka soo qaaday sidaas oo kale ay weerar soo qaadaan. waxaana weli ay baqdin ka qabaan in dagaalku uu sii fudo. deegaanka lagu dagaalamay iyo deegaanada kale ee hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa dhowr jeer oo hore ka dhacay dagaal u dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed iyadoo ay markaasi dhowr jeer oo hore isku qabsadeen arrimo ay qayb ka tahay ceelbiyood iyo sidaas oo kale dhul daaqsin. ilaa iyo haatan ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Hiiraan iyo sidaas oo kale maamulka Hirshabeelle ee ku aadan dagaal beeleedyada halkaasi ku soo laalaabtay. odayaasha labada dhinac ee dagaal beeleedka halkaasi ku dhaxmaray waxay sheegeen in marka kan ay diminayaan dirirta halkaasi ku dhaxmartay labada maleeshiya beeleed. markana arrimaha doorashooyinka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble waxa uu wadaa dadaaladii ugu dambeeyay iyo dardargelinta ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo doorashada si markaas ay ku noqoto mid xilligeedii ku qabsanto. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan markaasi la qaatay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi isla markaana isku khilaafsan kuraasta halkaasi ka imaanayso iyada labada dhinacba ay doorteen gudoomiye iyo gudoomiye xigeen isla markaana ay isku khilaafeen hanaanka markaasi wax loo maamulayo. wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya haatan ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxa uu eedeyn kulul u jeediyay filla Soomaaliya isla markaana ku aadan in markaasi boob ay ku sameysay kuraasta gobolada waqooyi. sidaas oo kale wasiir Maareeye waxa uu sheegay in hanaankii looga tashanaya arrimaha doorashooyinka aan laga qayb gelin siyaasiyiinta gobolada waqooyi.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble waxa uu la kulmay xildhibaanada kasoo jeeda gobolada waqooyi kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay uu khilaaf ka dhex jiray. Labada dhinac ayaa waxay haatan ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka ee hormuudka uu ka yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble, islamarkaana u xaqiijiyay in guud ahaan doorashada sidaas oo kalena gaar ahaan kuraasta gobolada waqooyi loo maamuli doono si daahfuran oo markaasi islamarkaana labada dhinac ay iska kaashan doonaan. Xubnaha kulmay ee xildhibaanada kasoo jeeda gobolada waqooyi ayaa soo dhaweeyay kulanka uu markaasi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu sheegay inay diyaar u yihiin in doorkooda ku aadan doorashada xildhibaannimada ee u dhacdo si cadaalad ah. Kulanka uu maanta ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble islamarkaana uu la qaatay xildhibaanada kasoo jeeda gobolada waqooyi kaas oo ku aadan in markaasi la xaliyo tabashooyinka iyo khilaafaadka ku aadan in markaasi arrimaha doorashooyinka laga xaliyo. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uu wadaa dadaaladii ugu dambeeyay ee ku aadan arrimaha dardargelinta doorashooyinka. Markana Garbaharey waxaa halkaasi gaaray guddiga uu markaasi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble u saaray inay xaliyaan tabashada iyo khilaafaadka markaasi ku aadan maamulkaasi. guddigan halkaasi gaaray waxaa ka maqan guddigii ka imaan lahaa deegaanada uu ka harimay maamulka Jubbaland, islamarkaana lagu waday in halkaasi ay gaaraan. sidaas oo kale waxaa gaaray dhammaan maamul goboleedyada guddigii ay soo magacaabeen, inkastoo weli uusan guddigaasi halkaasi gaarin guddigii markaas uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kasoo doortay deegaanada uu ka harimay maamulka Jubbaland. magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo waxaa gaaray guddiga dib u heshiisiinta ee ka socday maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk Soomaaliya marka laga reebo Jubbaland. guddigan oo ay xubno ka yihiin wasiiro ka tirsan maamul goboleedyada ayaa durba bilaabay la tashiga ku aadan sidii dib u heshiisiin looga dhex abuurin lahaa bulshada gobolka, loogana diyaar garoobi lahaa ka qaybgalka doorasho loo dhan yahay oo markaasi lagu qabto magaalada Garbaharey. Arintani ayaa imaanaysa iyadoo bilowgii toddobaadkan uu maamulka gobolka Gedo sheegay in wax xiriir iyo wada shaqayn ah uusan kala dhaxayn madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayna sugayaan sida ay sheegeen in muddo xileedkiisu uu dhamaado. gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed Canjeex mar uu la hadlaya BBC-da waxa uu sheegay in markaasi uusan wax xiriir ah la dhaxmarin maamulkiisa iyo maamulka Kismaayo, wax xiriir aysan dhexdooda oolin. waxa uu sidaas oo kale sheegay in aysan aqbali doonin guddi doorasho oo heer maamul goboleed ah oo laga soo magacaabay magaalada Kismaayo. arrinta gobolka Gedo waxay qayb ka ahayd khilaafaadka ragaadiyay doorashada. sidaas oo kale arrintaani ayaa waxay ahayd arrintii ugu badneed ee markaasi hakad gelisay hanaanka doorashooyinka, iyadoo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble uu u soo magacaabay guddi ka imaanaya maamul goboleedyada si halkaasi tabashada iyo khilaafaadka ay qabaan labada dhinac uu xaliyo. tani ayaa mar kale waxay caqabad ku noqon doontaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble, islamarkaana ku aadan khilaaf markaas in aan wax waan ah iyo wada hadal ah aan laga gaarin. markana waxaynu aadi doonaa deegaano dhowr ah oo markaasi ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ay kala wareegeen al-shabaab. taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Maxamed Tahliil Biixi iyo saraakiil uu hogaaminayo ayaa kormeeray tuulada markaasi lagu magacaabo Dhaghaye oo hoos tagta deegaanka Wisil ee Mudug. sidaas oo kale dhanka saraakiisha kormeerka halkaasi waxay sheegeen in ay kala wareegeen al-shabaab kadib markii ay isaga baxeen ciidankii halkaasi ku sugnaa. taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Maxamed Tahliil Biixi iyo saraakiisha la socotay ayaa kormeeray xaafadaha deegaanka lagu magacaabo Dhaghaye iyo sidaas oo kale banaanka deegaanka oo saldhig ay ku leeyihiin ciidanka dowladda. taliye Biixi oo kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ciidanka ayaa beeniyay inay deegaanka kala wareegeen al-shabaab islamarkaana dagaal uu ka dhacay. waxa uu saraakiisha faray inay xaqiijiyaan amniga deegaanada ee markaasi
kala wareegayaan al-shabaab deegaano badan oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug sida bacaadweyn wisil iyo sidaas oo kale deegaano kale waxaa dhowaan ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya iyo sidaas oo kale oo xubno ka tirsan al-shabaab dagaaladii halkaasi ka dhacay ayaa ciidankii iyo saraakiishii horkacisay ciidanka dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in markaasi guulo la taaban kara ay ka soo hooyeen daawadayaal guud ahaan warkii oo aad kala socoteen galka wararka waa naga intaa waad ku mahadsan tahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga waxaynu diiradda saari doonaa oo aan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya ka imaanaya hadba xaaladda halka ay marayso iyo arinku sida uu yahay ayaan idiin soo gudbin doonaa annagoo mar waliba u jaleeci doona wararkii ugu dambeeyay ee halkaasi ka imaanayo waad ku mahadsan tahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga waa barta YouTube ee galka wararka booqashadaadii ugu horreysay haddii ay tahay subscribe noo saar asxaabtaada u sii share garay qaybta hoose ee oraahda commentigaaga kaaga aadan wararka aan soo gudbinayno noogu reeb waad ku mahadsan tahay mar kale iyo mar kale la socodkii la jaanqaadka warkayaga